gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka injineer Faysal Alwaraabe oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa taageeray go'aanka xisbiga xaakimka dalada dalka haya ee kulmiye isagoo sidoo kalena eedeymo u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ee wadani kuna tilmaamay inaanu dan ka lahayn danta qaranka Soomaaliland isla markaasna aanu diyaar u ahayn doorasho dalka ka dhacda sanadkan 2019 dhammaantood waxaan ku heshiinay markaa maanta inaan la hadal oo dee weli waa socdaa wada hadaladii oo soo seexday aan isku soo seexnay ahayd laakiin waxaan idin sheegayaa insha Allah taala anagu cid ahaan saddex xismo ka yimaadeen anagu compromise baan keenay compromise labada qol weyna diideen hadda waa la isku soo noqday waxaan u sheegnay compromise cidii naga ogolaato win position ayaan nog taageerana anagu waxa weeye bottom line ka wana inay doorasho 2009 ka dhacda haddii doorasho dhici weydo Soomaaliland mugdi bay gelisay halkaas aan ka duulina marka insha Allah taala بريتو ayaan ii warami doonaa markaanu insha Allah taala aan xusbigan la tashano dad kale magana saayay tacabadi galiyay in asxaabtu isku soo noqotana aanu u war celino marka insha Allah taala بريتو in details aan waxa ka sheekayna hadii la yiraahdo asoo dhan waxaan ka sheegaynaa بريتو anagu meel ku tanaasulay ma garanay in doorashay labadii la naga helo baan ognahay ya haduu tanaasul u qaatay dawa nasiib daro anagu qofku xusbiga ra'yigiisa wuxuu leeyahay mowqif buu leeyahay ma danta ayaan dalka horeysina laakiin haddaan arrinta idin sheegno wadani wuxuu wataa ajenda aan Soomaaliland ahayn hadda ma doonaysa inaan dalkaasi doorasho ka dhicin buu wataa waxa ku jira shakhsiyaad aan ognahay meelay ku xidhan yihiin ayaan ognahay markaa waan isku dhaaranaa inay doorasho dhici weydii dhacdo taasana balana si kastaba ha ahaatee xisbiyada kulmiye wadani iyo wicid ayaa muddooyinkii u dambeeyay isku khilaafsanaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo qabsoomi lahayd bisha saddexaad ee voodda inagu soo haysa hase yeeshee arrintani keentay in dib loo dhigo doorashada waa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed andar telefishinka Somaliland Space Channel magaalada Hargeysa.